nimayo anigu waxaan taageersanahay marka la isguursanayo jacayl in isku guursado hooya ii soo doortay ayeeyaa ii soo doortay xaggan iska aragnay reerkeena in iska siiyay gabadhii iska noolay ninkaana lagu daray waxba isku ogeyn waa ka soo horjeeda guurka dhaqameedka aan qofkiiba suurad ka haysanba qofku nolosha la wadaagayo waa ka soo horjeeda midkan kale akhlaaqdu xunta ay diinta laga tagaya shirka laga tagayna waa ka soo horjeeda hal la isku guursado jacayl dushiis jacayl waa jiraya guurka ka hor laakiin guurka wuu sii siyaadaya ama hoos buu dhacaya sida hadda loola tacaamulo way dhamaanteen hadda inta guurka ka hor macaan jacayl laakiin marka la isku guursado kala cararay kuwa adduunka soo kala cararay waayo wixii been baa la sheegay marka hore sooma wallah marka jacayl iyo kahelid iyo dooq u guursada meesha la idin ku khasbi lahaa hoosta la idin ka soo gelin lahaa qof adiga hoosta laga soo geliyay in ilaahay si kale kugu wanaajiyo nasiiba mooyaane waxa ka qaadaysa ismana fahmaysan wallah dareema la'aan iyo ixtiraam la'aan baad ku nool kala dhala kala ureeyo kala faxaya wana sida tuulooyinka iyo baadiyaha ay ku nool yihiin ixtiraam dulligaas ilaahay u gargaaro kuwa badan jacayl hal isku guursado jacayl iyo kahelid iyo aqoon marka inaad jeceshahay asna ku jecel yahay inaad guursatid ama gabadh aad jeceshahay ama yani adiga ku jecel guursataan dad isjecel faa'iidooyinka ay leedahay idin tilmaamaya midda kale ku khilaafsan tahay dhaqameedka iyo waxyaalaha la siisiyo la isku daro la isku qabsado madaxa la isku geliyo gabar baan ku haya ilaahay baan idinku dhaarshay gabar miskiina agoon ah miskiina aabaheed intay ku furay hooyo soo korsatay la soo rafaaday abtiyaasheed iyo hooyadeed baa laga yaabaa inay ku caawiyeen markay qaan gaartay baa kuwa soo fariisanayaan doqomo ah adeerkeed baan ahay wiil baan siisanaynaa gabadheena si war ma weel meesha ku yaala war gabadha ma fiiriyaan korniinkeeda kama fikira maalintii qaan gaaro naasuu soo kacan bisa u fiirinaya wallahi way guur gaartay war yaa lagu daro hebel meel aad joogtaanba hooyadeedii soo korsataa iyo abtiyaasheedii soo korsatay ayaa iskale gabadhaas oo amarkeeda haya adeerkan dayacay waxba ma hayo gabadha hameenkay dhalatay ilaa ay koraysaa qofka hadduu qiimeeyo la socdo hadalkiisa waa la ixtiraami karaa laakiin hooya la soo rafaaday caana iibsi jidka ay ku gadaysa daraadeed wax ku soo barto ku soo koriso la soo rafaaday maalintay qurux badnaatay oo soo kacday oo soo jiidashada leh oo haweenay ay tahay adeerkeed soo fariisanay ama awowgeeda aabaha dhala ama wiil walaalkeeda aabaha ku ah ama mid kale soo fariisay gabadheena waxa rabnaa ninana siisano gabadha yaa ku dhalay gabadha gaagaad ku joogtaa waa dhaqanka Soomaaliya dulliga ee diin la'aanta weeye kaas xaraam weeye kaas ee waxaan leeyahay jacayl ku guursada jacayl ku hadla jacayl ku noolaada jacayl ku buuqa adaan sayid leeyahay jacayl ku dhisa adduunka dad isfahansan guriga wada dhista waxaan isfahansanay isku qabl isku siiyay guriga dhisay waa maxay wartiirka xagga ka qabay xagga qabad waa soo qabta adu qabo laakiin markii la yiraahdo xaggaad ka qabanaysa ugu hadhow guriga adna xagga qaban la isla fahansanaa oo isku imaado hawsha dhab bay noqonaysaa marka gabadhaad jeceshahay guurso ee ayada ku jecel mid aad jecelayn iska tag hooyo soo doortay eeda soo doortay iska tag hooyo waxay soo doortay waa boqolkii waa easy inay wanaagsanaato laakiin si la rabay ma waayo waxa guursanay waa adiga gabar yahay waa adiga wiilyo hooyo maan aabana ma qoyska isaga oo qofkan fawaid aad weyn buu leeyahay guurka adoo aqoon iyo jacayl u leeyahay inaad guursato qofkan faa'iidooyin badan buu leeyahay la socdo faa'iidooyinka horta oo intaana garin qodob baan rabaa inaan ku baraarujiyo walaalaha waxa weeye qodobkan shayga ugu adag ee gabadh dusheed ku adag idagaysta jiniyo insiyo idagaysta Soomaali Maxamed ay idagaysta colol kuusay idagaysta qof walba uu idagayso gabadh waxa ku adag nolosha gabadh wax ku adag ma taqaana qof ay si jecelaanaysa garanayna inay noolaato gabadh waxa adduunka ugu nicibtay oo ku adag oo ku qalafsan qof ay si garanayn oo ay si jecelayn inay nolol la qaybsato gabdhaha ha qasbinina warwiilku hadduu 50 jir haweeney guursado isagoo 20 jir fasaxa asaga iska leh hadday gabadha ayadoo 20 jir 80 jir guursato fasaxa ayada iska leh rabitaanka jacaylka maxal raacas qof walba qofkiisa asaga leh saaxiibaya qof adduunkan ha dhibinina way gabdho badan dhibaato markii loo soo jeedo wiilasay dad ugu qasay xumaan bay sameeyeen oo balaaya dhacdo caruurtooda dayacun zinay sameeyeen oo kaas magaalada galeen oo dayacmay laakiin qofka rabitaankiisa u daayeen mayo gabadha jeceshay ama wiilka jeceshay markaad guursanaysid wuxuu uga duwan yahay midka lagu qasbo mandhaha laga cabeeyo waxa weeye gabadha jeceshay markaad la sheekaysanaysid
يعني oo jacayl guurka aad u guursatay waa saameyn buu kugu yeelana laakiin guur adiga lagu keenay saameyn kugu leeyahay doo burburi hadii wali laakiin guurka jacayl ku guursatay saameyn buu kugu leeyahay oo ku saameynaya waa midda kale gabadha markaad ku guursatid jacayl ama wiilka jacayl markaad ku guursatid fahamkiinu waa ballaaranaya si tabciyo wanaagsan buu noqday meesha la isku kiicanbayn lahaa way waa fahanti waa isku tabiicadiisa garanaysa qofka waxaad garanaysaa caadadkiisa garanaysaa dhaqankiisa akhlaaqdiisa garanaysaa meeshu ku xun yaad garanaysaa meeshu ku wanaagsan yaad garanaysaa wuxuu jecel yaad garanaysaa wuxuu neceb yaad garanaysaa laakiin qof lagu cabeeyay shul yeeshal maxaa ka fahansantaa balay ugu ruuq yahay maxaad ka fahansantaa gabdhuhu waa jecel yihiin ninka jecel maalintu soo doono wallahi iga qora wallahi daraasooyinka la qaaday cilmi baarista cusub waxay tilmaamayaan gabadha maalinta ugu farxad badan wiilkay jecelayd ee jeclaa markuu soo fariisto oo uu yiraahdo heblaayaan rabaa inay siisa jannay dareemaysaa janno ee gabdhaha farxadooda u daayay ciday jecel yihiin mar haddii diinta iyo islaamnimada khilaafsan u daayay laakiin uu diinta iyo islaamnimada waxa kuma dhistaan waxaad ku dhistaan luqad kale ku dhistaan u daayay waxay jecel yihiin hore Soomaalida hore waxay u leeyahay taqaana dad yaa u geesisan waxa u geesisan nin ku soo fariisto ku yiraahdo qof nool isii dad u geesisan waxa laakiin ka sii geesisan oo ka sii daran qof ku yiri qofka nool qaado والله marka waa gabadhu waxay jeceshay ninkii jeclaa ee jeclay ee is yaqaaneen ee wax badan ay wax gorfeeyeen maalintu soo doono ya salaam ee u daya xorriyadooda mid kale waxa weeye gabadha aad jeceshahay ama wiilka aad jeceshahay markaad guursatid akhlaaqdiisa saameyn bay kugu yeelanaysaa meesha laga sixi karo waad garanaysaa meesha ay yara ku jabi karto waad garanaysaa aragti baa ku baxsan ehelkeeda marka la caamulaysid ama ehelkiisa dadka jacaylku soo guursateen way fududahay bas jeclaanaysa laakiin dal isku keenay ku qabatay qabti baa ku dhacdan maqrij maya gabadha aad jeceshahay markaad guursatid ehelkeeda inaad la dhaqantid way fududaanaysaa baynama midda lagu cabeeyay aada fahmeen ninka ku dhaay hooyada waa nimcay waa nin lagu cabeeyay ma ahnina jacayl soo guursateen iyo faham adoo fariisateen jacayl soo guursada walaalayaal dad isfahansan gurigay dhisayaan ka fakaray wax badan gorfeeyay wada fariistay is arkay is calmaday anu waan aaminsanahay jacayl guurka kor waa jira laakiin uu siyaadaa guurka waana nusqaama jacaylka dumarka markay qaadaan markii la guursado ayagu uu siyaadaa rag laakiin hoos buu dhacaa way kala duwan yihiin hadhow hadii jacayl isku guursado jacaylka inuu sii hormaro iyo inuu hoos u dhaco markii la isku guursado ay ku xiranta imisa isjeclayd markii guurka ka hor sheeganaysa inay isjeclay markii isguursadeen isnacay oo dhaqan kale soo baxay waa boqolaal marka qof walba qofku ka helo muslim haduu yahay akhlaaq leeyahay wanaagsan yahay toosan yahay u daa la qabiil wala dad wala xoolo ha ku maarati ku macaysan marka isbarta si wanaagsan sharaftiinana ka tanaasulin xumaan ha sameynina isbarta iswada socda isfahma mudaha qaadato ظروفتك كحرنت سنادها قادته بلاها قادته اسبوعيها قادته قفل بيا اوديس يسي فهمان وي قارح كليه غور ودا سocodka suqaanshika 3 bilood 3 sano 2 sano soconay wax xun waay maya wax xun ma haday ayagu xumayn dadka xumayn kara ma wanaajin kara ma xuma wallahi ma xuma dadka haday aaminaan duruuftana ay fiirsadaan oo dhahaan sanadkaas waxay noo horgini kara 10 sano ha noqoto kadib ay soo sabraan lillahi runay ka ahaato ayagu way xumayn dawa wanaagsan laakiin haday ayagu xumayn busbuuc baha hada waxun yahay shukaashu inuu xumaado اسبوع ama bila ama sanado dadka sameynaya ka masuula ama inuu wanaagsan yahay xumaado marka sanadkan uu dheeraad saas ku xun yahay wax jira ma ha sharcigu suuqa waa abaha laga dad sax way laakiin marka isfahantaan de wax isku soo fahantaan oo isticlaateen is ogtihiin wax ka wada midaysantiin ba aabiyo hooyiyo ayay qoysku keenaysa ee ugu cabbe waa wax mustaqbal xuma dhigtay gabdho badan iyo wiilo badan dadka qofkay jecel yihiin u daayay say doonaan هو معاملين هذه حدود الشرعية الإسلامية لا إله إلا الله تاسوي مدار وينا أن فرحين تكسو دبكة بيو